Trump uu ka soo yeeray hadal kale oo la yaab leh ka oo ku aadan Gaza. Sacuudiga oo dhankeeda seefta galka kala baxday taa oo haatan garab taagan difaaca reer Gaza. Iyo boqorka Urdun oo ku sugan Mareykanka. Qodobada iyo qodobo kale oo wararka caalamka ah ayaynu doonaynaa barnaamijkeenan inaynu ku falanqeyno. Soo dhawaada. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sidii uu kursiga u soo laabtayba waxa ka soo baxayay hadalla dunidii ka yaabiyay kuwa oo ku aadan bariga dhexe iyo reer Gaza. Kadib markii uu ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu uu Mareykanka tagay, Trump waxa uu sheegay inuu Gaza xoog ku qaadanaya reer Gazana uu barakicinaya. Isagoo markaa ugu baaqay dalal Carabeed oo Masar hogaaminayso in dadka waxa weeye ay dal siiyaan oo ay deegaan siiyaan. Arrinta ayaa noqotay xaalad ugub ah oo dadkii dhan ay la yaabeen. Wadamada Carabeed iyo shucuubta Islaamkana dhammaantood waa ay ka hor yimaadeen. Sidoo kale dalalka Yurub ayaa intooda badan ka hor yimid warka oo ku sheegay waxaan la aqbali karin oo aan suuragal ahayn. Mar kale Trump waxa uu sheegay hadalkii hore mid ka duwan. wuxuuna yiri Gaza waan iibsanayaa waxaana ka dhigayaa meel aad u qurux badan. Sidoo kale waxaan sheer ka siinayaa wadamada Carabeed ee qaniga ah qaarkood wadamada Khaliijka ayaan waxa weeye sheer ka siinayaa. Arrinkii ayaa mar kale laga hor yimid oo la yaab kale noqotay. Laakiin Trump hankiisii ayuu weli ku dhagan yahay. Mar saddexaadna waxa uu leeyahay dadka reer Gaza waxa weeye Gaza waa laga rarayaa kumana laabanayaan. qaarna Mareykanka ayaan keenayaa oo shacabka Mareykanka ayay ka mid noqonayaan, qaarna waxa qaadanaya oo lagu darayaa dalalka Carabeed. Arrinkani dadka reer Gaza iyo guud ahaan reer Falastiin, shucuubta Islaamka iyo xoogagga iska caabintaba aad ayay uga hor yimaadeen, waxayna ku tilmaameen riya aan marnaba suurtagal lahayn. Dhanka kale Sacuudiga ayaa shuruud ku xiray la kulankiisa Netanyahu iyo inuu Israa'iil xiriir la sameeyo in ay shuruud ku xiran tahay shuruudda oo ah in la dhiso dawlad ay leeyihiin Falastiiniinta. Hadalka markuu Sacuudiga ka soo yeeray, Netanyahu ayaa jawaabtii Netanyahuna waxay noqotay mid boogtii cusba ku shubtay. Wuxuu yiri Netanyahu maadaama Sacuudiga ay doonayaan reer Falastiin in dawlad loo sameeyo, dhulka Sacuudiga ee weyn qayb ha ka siiyaan, halkaana dawlad ha looga dhiso. Sacuudiga oo marka hore Israa'iil xiriir la lahaa, Mareykankana xiriir wanaagsan la lahaa, ayaad haatan u malaysaa in xiriirka uu sii burburaya. TV-yadoodana waxa ay tabinayaan waxay tahay in ay garab taagan yihiin oo ay la safan yihiin shacabka reer Gaza. Siyaasiyiintoodana waxa ay yiraahdeen hadal ay Iiraan horay u jireen, hadalka oo ah in Israa'iiliinta la raro oo Mareykanka waxa weeye goboladiisa iyo deegaanadiisa uu meel ka siiyo. intii reer Gaza la rari lahaa waxa fudud dadka dhoofka ku yimid ayaga hal la raro oo dhulka uu Mareykanka maamulo hal la geeyo ayay qabaan. Masar sidoo kale aad ayay uga hortimid hadallada duldulka ah ee aan ka fiirsiga lahayn ee iska hadalka ah ee waxa weeye Trump ka soo baxaya maalinba maalinta ka dambaysa waxay isu soo dhaweynayaan Carabtii mar hore la kala dulaalay ee aan waxa weeye shaqo iyo shuqulka isku lahayn. waxaana haatan tusaale u ah Sacuudiga oo Mareykanka iyo Israa'iil waxa weeye aad ugu dhawaa inuu haatan waxa weeye daanta kale taagan yahay oo waxa weeye haatan uu garab iyo gaashaan la yahay oo la safan yahay reer Gaza. laakiin su'aasha aniga isweydiinaya ayaa waxay tahay haddii Trump reer Gaza isku dayo inuu awood u adeegsado oo uu awood ku raro oo waxa weeye uu xoog u sheegto uu ka awood badiyo, wadamada Carabeed maxay u qabanayaan? miyay u gurmanayaan? miyay u hiilinayaan? ilaa shalayba waxa weeye ayagoo arkaya oo eeganaya ayaa hortooda lagu cunayo ilaa haatan lagu baabi'inaya. miyay kula tahay inuu jiro dal Carabeed oo waxa weeye reer Gaza la safarayo oo dagaalka dhan ka soo galayo xabad ridanaya inuu jiro? miyay kula tahay adiga? taa ayay tahay su'aasha muhiimka ee meesha ku jirta. dhanka kale boqorka Urdun ayaa waxa weeye uu Trump u wacay. ayagu waxay leeyihiin hogaamiyaha iyaga waxa uu u safray in waxa weeye Trump uu ka dhaadhiciyo qadiyadayada ah in reer Gaza waxa weeye la garab istaago oo aan la dhibaateyn. Trump ayaa u yeertay kulay waxa suurtagal ah in la doonayo in laga dhaadhiciyo ama laga hadlo qorshihii ahaa
inuu reer Gaza qaato oo waxa weeye dalkiisa ay qaxooti ku noqdaan maadaama qaxootiga ugu badan ee halka jooga ay haatan Falastiiniyiin yihiin si kastaba ha ahaatee waxaad u maleynaysaa soo laabashadii iyo damacii waalida ahaa ee Trump inuu waxa weeye mideynaya wadamada Carabeed ee bariga dhexe kuwa badan oo hurdaya oo dhulka eegayayna waxaad u maleynaysaa haatan in ay fahmayaan cidda loo socdo iyo cidda la doonaya kaliya in aysan reer Gaza ahayn su'aasha kale ee isweydiinaya maxay tahay waxa Gaza loogu ordayo oo waxa weeye ay Yahuudda hore ugu raadinayso u dagaalamaysa haatan Mareykanka uu leeyahay anaa qaadanaya waxa lagu leeyahay Gaza waxa la ogaaday waxa lagu leeyahay xeebaha Gaza waxa ku jira 1.6 trillion oo gaas ah sida darteed kheyraadka ayaa la doonayaa in laga faa'iideysto kooxaha iska caabintana dhowr jeer ayaa loo soo bandhigay in laga heshiiyo la damcay laakiin way ku gacan sayreen oo gaashaanka ayay u daruureen in deegaankooda waxa weeye lagu dul shaqeysto ayagana waxa weeye xoogaha yar oo sandareerta loo tuuro deetana ay dhabarka joodiyaan arrinka waa ay diideen oo way ka hor yimaadeen xoogaga iska caabinta marka waxa muhiimadda inta badan loo socdo waxay tahay shidaalka tirada badan iyo kheyraadka in waxa weeye la iska daldasho oo laga faa'iideysta ayaa la doonayaa